Assalaamu calaykum. Waxaad nagala socotaan sheeko show barta laga helo kaydka sheekooyin xikmado ku dheehan. Sheekada maanta waxaa ku jiro xikmad, dhagar iyo daacadnimo caqli badan ku dheehan yahay. Sidaanayna ku bilaabanaysaa. Hadda ka hor, maalin maalmaha ka mid ah baa nin boqoro wuxuu iskugu wacay saddexda wasiir ee dalka ugu sarreeya. Wuxuuna ku amray mid kastoo saddexdooda ka mid ah inuu soo qaato jawaan kadibna uu aado xagga iyo beerta qasriga boqortooyada ku dhex taalay. Dadna jawaanka ay ku soo guraan khudaarta ka dhex baxda beerta weyn ee qasriga boqortooyada, kuwa ugu macaan uguna wanaagsan. Wuxuuna boqorka u sii raaciyay inuu ka codsanayo arrintan inay asi muhiim u tahay. Saas darteed uu u sheegay inay iyaga gamcahooda ku soo guraan khudaarta qofna aysan u dirin. Saddexdii wasiir way la yaabeen arrinta la yaabka leh uu boqorka u diray. Boqor waa Ilaahay. Say ahaataba, waxay soo qaateen jawaanadii, waxayna u dhaqaaqeen xagga iyo beerta weyn ee qasriga. Wuxuu ku dadaalay wasiirkii koowaad inuu doorto miraha iyo fruitska ugu macaan beerta ilaa uu ka buuxsamay jawaankiisii weynay. Wasiirkii labaad wuxuu isdhahay boqorka uma baahna khudaartan ama fruitskan ama waxaan uu noo soo diray. Lagamana yaabo inuu gamcihiisa inta la galo baaro. Saas darteed isma daaline wixii ka hor imaadaba oo la cuni karaba oo beerta ka baxa wuxuu galshay jawaankiisii ilaa uu ka buuxsamay. Wasiirkii saddexaad baa isdhahay boqorkan waxba kalama jecla. Lagamana yaabo inuu arka xataa. Saas darteed jawaankii weynaa wuxuu ka buuxshay wixii ugu horreeyay uu arkay coos, caleemo, geedaha, khudaarta soo dhacday, wax kasta uu arkay uu ka buuxshay jawaankiisa ilaa uu ka buuxsamay jawaankii. Maalintii xigtay baa boqorkii wacay saddexdii wasiir amrayna mid kasta inuu horay u soo qaato jawaanadii uu ka buuxsaday miro iyo fruitskii dhammaan khudaarta ugu macaan ee beerta ka baxdo. Sida boqorka amray. Kadibna wuxuu amray in saddexda wasiir mid kasta xabsi gooni ah lagu xiro. Lalana xiro waxa uu khudaar iyo miro fruits dhammaan wuxuu soo guray jawaankiisa ka buuxa in lagu xiro. Sidoo kale wuxuu amray in 3 bil loo gali karin cuntana ay ka dhigtaan jawaankii ay boqorka u soo gureen. Fadlan like tajaksisi subscribe haddaan nagu cusub tahay asxaabtaadana la wadaag mahadsanid aan sheekada sii wadna wasiirkii koowaad wuxuu ku noolaa 3 bilood wuxuu khudaar iyo miro soo xulay asoo nabad ahna ka soo baxay xabsigii markay 3 bilood dhamaatay. Meesha wasiirkii labaad loo galay asagoo gaajo la ildaran waxaana si dirqi ah uu ku soo gaaray muddadii loo qabtay asoo ku tiirsanaa khudaarta intii fiicneed maadaama uu markii hore si carelessnimo u soo guray dalabkii boqorka. Nasiib daro laakiin ninkii saddexaad baa asoo meyd ah loo galay sababtana awalkii hore maba uusan soo gurin wixii loo diray. Saas darteedna wuxuu u dhintay gaajo. Xikmadda sheekadan ku jirta waxay tahay in qof kastoo naga mid ah maqlayna sheekadan uu dareemo in hadda annaka dhan aan joogno beertii adduunyada qof kastana jawaan asoo garbaha u saaran yahay dhashay. Waxaad rabta ku gur wanaag iyo xumaan ogow laakiin maalin aan la gaaraa waxaa soo guratay keligaa qabri la geli doontid. Saas darteed wali fursada haysataa wax fiican guro saa beri ugu badbaado sababtoo ah waxaa la gaari doonaa maalin calaacal wax tari doonin. Haddaa ka faa'iiday sheekadan wala wadaagi kartaa asxaabtaada WhatsApp-ka, Facebook waa intaasay iyagana ka faa'iidaan. Kuna soo biir sheeko show family adoo subscribe dhahay channelkeena. Wassalaamu calaykum.